إنا لله وإنا إليه راجعون. walaalyaal sala socotaan waxaa maanta inaga geeriyooday adeer Sheekh Cusmaan Suufi oo magaalada Seattle oday aad looga yaqaan loo qadariya ahaa. hadda waxaan joognaa dugta ayaan joognaa oo lagu duugayo qubrahan oo la yiraahdo Covington Cemetery House of Mercy oo ku yaalo xaafad ka mid ah gobolka Washington oo la yiraahdo Kent. hadda dugta ayaa socota marka waxaan isku diidi doonaa insha Allah taala inaan bal clips ka qabano si ay u noqoto xasuus isagana loogu soo duceeyo insha Allah taala. sidoo kale dadka ka soo qayb galay ee asxaabtiisa iyo ehelka iyo qaraabada qof walba oo aan jaan soo helno inuu isna tacsiid diro ama uu duceeyana waa duubi doonaa insha Allah taala. marka muuqaalkan wuxuu noqon doonaa muuqaal aan ugu duceynayna adeerkeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala jannatul firdaws al-a'la Allah geey. adeer wuxuu ahaa shakhsi aad iyo aad u qiimo badan, quraan akhris badan, aad iyo aad u kaftan badan, dadka dhan ay jecel yihiin ayuu ahaa. geeridiisana waxay noqotay mid runtii aad iyo aad loo tabi doono oo dadku magaalada jooga maanta ay aad iyo aad u murugaysan yihiin. maanta waa maalin axad ah, taariikhduna ay tahay 2 November 2025. marka muuqaalkan saan hore u sheegay wuxuu noqon doonaa muuqaal tacsiya insha Allah taala. idinkana waxaan idinka codsanaynaa haddii aad muuqaalkan daawanaysaan inaad u soo duceysaan adeerkeen inuu jannatul firdaws al-a'la Allah subhanahu wa ta'ala ka waraabiyo. xasuusna jazakallah Allah ku barakeeyo. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Allah naxariisto adeer Cusmaan. ilaahay subhanahu wa ta'ala alwaalid xaaji Cusmaan Allah naxariisto. marka annaguna maaragtay qalbiganagu wuu murugoonayaa, indhuhuna way ilmeynayaan, kuma hadlayna laakiin waxaan ilaahay raalli ka ahayn. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu weydiinaynaa inuu jannatul firdaws ka waraabiyo, kulligeenna maaragtay samir iyo iimaan inaga siiyo. waxaan tacsiy u diraynaa walaalkeen doctorkeennii doctor Yaxya iyo ehelka iyo qaraabada dhammaan geerida ku timiday waalidkoodii alxaaj Cusmaan. الله نحرسته إلهي حاجة نحرسته إلهي ميزانك حسنات كهوجليه وحيد بصام مريء وحنون كهوكراجي. التعسيدة ولكن دكتور شيخ يحيى صوفي أبيس الله نحرسه الشيخ عثمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين السلام لمانتين مانتو حاول تعسية لنا وهالكن جنازة سكيب قاضني يعني هذا الشيخ عثمان. إله سبحانه وتعالى جنت فرزق ورابيو إنه وحوها عادي عاد أهل الدين أفقابا. wuxuu Sheekh Cusmaan walaalayaal qof wanaagsan buu ahaa. wixii aan ku ogaabaan sheegayaa insha Allah taala. salaatul fajr عندما ندخل في المسجد كان في الصف الأول. markaan soo galno wuxuu ku jiri jiray safka ugu horeeya ayuu ahaa. waxaan rabaa insha Allah taala inaan uga markhaati kaco oo marag uga kaco inuu ahaa ahlu khayr, inuu ahaa qof ku sifaysan, hadalkiisu wuu yaraa, khayrkiisu wuu badnaa, dikrigiisu wuu badnaa, quraan akhriskiisuna wuu badnaa. waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo awlaadda uu ka tegay si gaara ee Maxamed Cusmaan, Dr. Yaxye, gabadha Faa'iza ah, maamada iyo waalidka iyo dhammaan qaraabada oo dhan inay idhaahdo samir iimaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala idinku arsaaqo. annagoo dhan buu naga baxay, masjid Abubakar buu ka baxay, masaajidda oo dhan buu ka baxay. كل جاب الربعين عند وقت تعزية إن شاء الله تعالى. إن لله وإنا إليه راجعون. ما شاء الله, this is a good sign. As everybody knows, Sheikh Yahya. Rasulullah said when he was asked, "Man ahabbu an-nas ila Allah?" Who is the most beloved people to Allah subhanahu wa ta'ala? Wala anfa'uhum bin-nas. The one who give benefit the most to the others. So look at today, his fathers, and how many people they doing the janazah. Because Yahya always they contribute to the community. They always engage in any activities, especially for the youth. meeshaan ku dhimanayna lama ogo. halkaas baa godkii rasmiga ahaa ama gurigii rasmiga ah. ruux walba gurigaaga xadxaado. dadka guryaha dhowr kilood marba iska bedelaan, dhowr sano marba iska bedelaan, sariirtaa la bedelaa, sariirtiina bedeshaa ruux walba ku talagala. halkaas waxay dhintay wuxuu idin yahay waanu idin yahay waa ilaahay kamidaan xigin. ruuxa dhintay ilaahay kama xigtaan. haddaad soo noqoto qabri ka soo noqoto bonus baad haysataa, gunno la yidhahdo waqti dheerayn baa lagu siiyey. gunnadaas ha iska luminin ruux walba. in adiga haddii isaga la soo celina ruux walba uu sii cibaadaysan lahaa. haddiise loo sheegi lahaa 6 bilood kadib aad dhiman lahayd wuu sii cibaadaysan cibaado badan
oo masaajidkaasoo ku jiri lahaa maanta oo dhan laakiin waa arrin la qariyey waxaa loo qarinayaa in la cibaadaysto laga warhayo laga cabsado weeyaan. شكر الله سعيكم. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you for your steps and coming attending the janazah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make this attendance and the salah shafa'atan lahu yawm ad-din wa maghfiratan li dhunubi ya rabbil alamin. runtiina waana waxaynu ugu wada filan waxaynu joognaa qabuuro aynu maanta ku aasnay adeerkeena aynu wada garanayno khayrna uga wada markhaati kacayno mar walbana waa nimaadnaayo qof walaalkeena oo inaga soo tegay ayaynu keennaa qofka ku xigana ma ogin laakiin waxaynu wada ognoo yaqiinsannahay oo runtii ah xaqul yaqiin geerida waa la inoo sheegay fi lqur'aani alkariim baa ilaahay ku xusay nebiguna sunnihiisu ku xusay ra'yal cayna waa aragnay labadaasi markay israaceenna xaqul yaqiin bay noqoto bani aadmiga cid isku khilaafsan geerida ma jirto maataa ugu dambayso waa innagaa arkayna inay jirtaana way sugan tahay muhiimaddu waxa weeyaan halkan markaad soo gelaysa maxaad sidataa walaalayaal qofkii doonaya in ilmihiisu u soo duceeyo maalintuu dhinto oo uu ka tago walad saalixa ka dhigto sheekh yaxya laa nuzaki cala allaahi axadan laakiin axsibuhu annahu min asaalixiin carruurtiisa ha ku dadaalo ana u duceeyo waxaad walaal investmentii aad gashatana wallahi carruurta ugu fiican walaalayaal wax lacag badan baynu samaynaaye intay dooniba ha noqotee lacagtaad samaysa waxaa ka fiican ilmo keliyo ilmahaaga ka mid ahoo saalix kuu noqda oo adduunka markaad ka tagto kuu soo duceeya waa ra'sulmaal waxa weeyaan asad aad kaga tagtay adduunyada sidaana ku carruurtaynu hayna allah inooga dhigo iyagana allah inoo xifdiyo oo baariina allah inooga dhigo oo markay adduunka ka tagnay inoo soo duceeya allah ka dhigo ehelkii adeer cuthmaan uu ka tegayna sabir allah subxaanahu wa tacaala ha ku arsuqo isaga waxaanu rajaynaynaa in shaa allahu tacaala annahu min ahli aljanna أنه مع النبيين والصالحين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا بأن رجينا إنه معود هذا إنك الدين الله نغصه إلهي إن مفتنا يبعدهم دمجيس الله طافو قبرك الله واسعيه قبرك الله النور عذابك الله كبد باديه إلهي سبحانه وتعالى هكيل من أهل الجنة من أهل رحمة الله تبارك وتعالى إلهي هكذبه إلهي سيو مساجد ينوغ كل مي إلهي سبحانه وتعالى ينوغ كل مي الجنات كيس إن شاء الله تعالى هذا وبالله التوفيق. اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبره روضا من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضا من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضا من رياض الجنة. اللهم أدخله الجنة الفردوس يا رب العالمين. اللهم اغفر له وارحمه. May Allah subhanahu wa ta'ala have mercy on our uncle Sheikh Usman Sufi. He was a great uncle. You know, my family and his family were always close, me and Sheikh Yahya, so, you know, it's a great loss for all of us in the community. I've seen majority of the Muslims here buried the Sheikh, you know, uncle has witnessed, and now tonight, you know, this will be his first night here. May Allah subhanahu wa ta'ala make it for him Rawda min Riyad al-Jannah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. halkan waxaan rabaa inaan tacsi tiiraanya leh uga diro eheladii iyo dadkii uu ka geeriyooday camuna Cuthmaan Suufi Cuthmaan. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتغمده برحمته وأن يغفر له وأن يتجاوز عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. صلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزق أهله بالصبر والسلوان وأن يغفر له وأن يرحمه وأن يجعله في جنات الخلد جنات النعيم. وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.